السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal halkaas maxaad ku aragtiin? waa su-aal. halkaas waxaa ka muuqda bariiskan shalaan soo gatay, waan karsaday, meel duur oon ka shaqeynaya ayaan joogay. bariiskii waxaa ku qoran bariis qaali buu ahaa, waxaa ku qoran basmati rice. waa bariisyahan la xamadan waaye. calaamooyinka aad ku garan karto bariiskanito waa bariiska la xamadan inta badan yuu ku imaadaa. bariiskan markaan kariyey oo cabaar u yaalay waxaa saana u kala taagan yahay. bariiska dabcan bariiska ay soomaalida aada u jeceshahay waaye, laakiin wax yar baan rabaa inaan idin tuso, tusaale ahaan ood fiirisiin bariiskanito wixii waan ku subin doono. bariiskan sidaad arkayso waa bariis waan ku duduubaya, fiirso. bariiskan markaad duduubto oo saa u duduubto waxaa kuu soo bixi inuusan bariis ahayn, inuu wax kale yahay oo bariis u ahayn yaa kuu soo bixi doonta. marka fadlan muslimiinta meel walbood joogtiin aada u fajignaada. waxan ayaa suuqa ku jira oo dadka laga gadayaa. waa bariiska soomaalida ay jeceshahay oo markii la kariyana kala daadanayo, oo kudigood ay ku daataan oo ay leeyihiin waa qaali. laakiin meeshan waxaad ka arki doontaa bariiskan wakaas isku dhege. waxaan ku tusi bariiskan, fiiri, dhulkaan ku dhufanayaa. markaad dhulka ku dhufto ma kala daadanayo, waa ambiir sida ceeg ahaan buu iskugu dhege. bariiskan waa bariiska suuqa ku jira oo ceega laga suubiyey. fadlan wixii aad ka naxayso bariiskanayto usii gudbi, videogan la share gare. waad arkaysaa, waad ila daawatay. waa kaa bariiska lagu leeyahay suuqa ku jira. waa bariis qaali ah, waa bariiska aan maalin walba gadano oona cunno. markaad suudhiisana caadi sidii bishooriga usoo shiiraya. waa bariis aad aada u jeclaan doontiin markaad aragtidiis iyo xaruufta kasoo baxayso. laakiin meesha bariis kuma jiro. waxaan waa caag baa lagu dhalaaliyey, lagu jarjaray, bac lagugu soo riday. fadlan muslimiinta gaarsii. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.